السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواد الشانل محمود عبد الله حسن. maanta iyo video cusub oo ka hadli doona dalka Congo. Channelka subscribe si videoda like gare comment-na xagga hoose ku qor. Dalka Congo ama Republic of Congo ama loo yaqaano intay u dhaxaysay 1971 ilaa 1997 dalka Zaire. waa dal ku yaala bartamaha qaaradda Afrika ama loo yaqaano Congo-Kinshasa oo magaca caasimadeeda lagu magac daray. waqooyi waxaa ka xideeya Jamhuuriyadda Central Africa iyo dalka South Sudan. barina waxaa ka xideeya Angola iyo Rwanda iyo dalka Tanzania. koonfurna waxaa ka xideeya Zambia iyo Angola. koonfur galbeedna waxaa ka xideeya Atlantic Ocean ama badweynta Atlantiga. caasimadeedu waa Kinshasa. waxaa ku nool 11 milyan oo qof. cabirka masaaxadda Kinshasa waa 9,000 oo kiiloomitir oo square ah. cabirka dalka Congo waa 2,344 kiiloomitir oo square ah. xaguu yahay dalka labaad ee Afrika ugu weyn ee kusoo xiga dalka Algeria. kaalinta 11aadna xagga dalalka ugu waaweyn xagga cabirka adduunka. tirada dadweynaha dalka Congo sanadkii 2018 wuxuu ahaa 84 milyan oo qof. diinta dalka waa Kiristanka, xagga Katoligu ay yihiin 50%, Protestantkuna yihiin 39%, inta kalena diimamka Afrikaanka. luqadda dalka waa Faransiiska, waxaa soo raaca luqado Afrikaan ah. lacagta dalka lagu isticmaalo waxaa loo yaqaanaa frankida. madaxweynaha dalka magaciisu waa Joseph Kabila. Congo xorriyadeedii waxay kala soo noqotay gumaystihii Belgium sanadkii 1960. dhaqaalaha dalka Congo wuxuu ku dhisan yahay beeraha iyo xoolaha iyo iibgeynta. xagay tahay dalka Congo dalka labaad ee ku xiga South Africa xagga suuqgeynta. waxbarashada dalka waa bilaash. dowladda ayaa bixisa da'da u dhaxaysa 5 jir ilaa 14 jir. caafimaadka dalka Congo aad ayuu u liitaa xagga labada cudur ay ugu waaweyn dalka ay yihiin AIDS-ka iyo malaariyada. dalka Congo wuxuu haystaa keyd fara badan. xagga lagu qiyaasay keydkiisa 24 trilyan oo dollar. laakiin dalkaasi keydkiisa boqolkii hal kalamuu isticmaalin ama lamu soo bixin. channelka Maxmuud Cabdilaahi Xasan waxay ku rajeen daawasho wacan iyo qiimo leh.
channelka subscribe si videoda like gare, commentna xagga hoose ku qor.